Ninkan wuxuu ka shaqeeyaa qodida qabriyada tuulada, laakiin shaqadiisa waxaa ku duwan shaqo kale oo ah shaxaarinimo. Maalin maalmaha ka mid ah asagoo shaqadiisa ku guda jiro, waxaa imaanaya dad wada meyd, waxayna bilaabayaan inay aasaan meydkii. Aad ayuuna u fiirinayaa meydka la aasayo, wuxuuna ogaanayaa qofta la aasayo inay tahay qof haweeney ah. Habeenkii markii la gaaro, wuu soo baxayaa, wuxuuna imaanayaa qabrigii saaka lagu duugay meydka, wuxuuna bilaabayaa inuu usoo saaro bannaanka. Aad ayuuna ugu daalayaa inuu kasoo saaro qabriga qofta haweeneyda ah, isagoo rafaadsan ayuu bannaanka usoo saaraya, laakiin danta wataa ka weyn midaan. Wuxuuna bilaabayaa inuu dharkiisa ka siibo xaajiisana uu ku guto iyadoo meyd ah, wuxuuna bilaabayaa inuu qabrigeeda ku celiyo. Subaxii midka deriskiisa ayaa u sheegaya inuu meyd kale lasoo wado maanta oo god kala qodo. Godka markuu dhameeyo waxaa la keenayaa meydka, laakiin meydka wuxuu arkayaa ninka ay ka dhimatay xaaska inuu aad u jeclaay, aad ayuuna u fiirinayaa xaaskan. Isla habeenkiina wuxuu bilaabayaa inuu sidii tii hore oo kale kasoo saaro godka. Markuu xaajiisa dhammaystay asagoo aan weli duugin, meesha waxaa soo maraya nin safar ah, wuxuuna arkayaa gabadhan meydka oo taala bannaanka godka, wuxuuna bilaabayaa inuu daddado oo ku rido godka. Isla markii waxaa goob soo maraya ninkii ay ka dhimatay gabadha iyo saaxiibkiisa, isla socda waxayna bilaabayaan ninkii aad u jirjiraan ay garaacaan. Dadka tuulada ayay iskugu wacayaan, waxayna bilaabayaan in dhagax ku dilaan. Haddaad u baahan tahay filimka oo dhammaystiran, akoonka follow waxaana kasoo daawan kartaa linkeyga profile-ka saaran ama YouTube-keena adoo qoraya Mahad Khulaso.